soo dhawaada asxaabay maanta waxaan idin hayaa xaalad dagaal ka dhex jirtay maalmihii la soo dhaafay Mariish iyo Qurux Kudhiigle oo ahaa saaxiibo ku mataanoobay barta YouTube-ka waxay si wadajir ah ugu wada socdeen aaladda YouTube-ka oo muuqaalo kala duwan ku soo gudbin jireen inta aysan safarka Canada aadeen Mariish laakiin Mariish markii ay tagtay wadanka Canada iyada iyo saaxiibkeeda Qurux Kudhiigle maalmihii la soo dhaafay waxaa jirto hadalay iyo wajib bedelid lagu dhax arkay iyagoo isku soo gudbinaya aaladda TikTok sida ayuu ku bilowday dagaalkooda iyo hadaladii la isku dhaafsaday TikTok waxa raayo iyo fikrado kala duwan ka bixiyay saaxiibada ku xiran labadooda una sheegeen waxay sameynayaan inaysan ahayn wax aan wanaagsaneen dagaalkii iyo khilaafkii dhaxyaalay Mariish iyo Qurux Kudhiigle ugu dambeyntii raaligelin ayay ka wada bixiyeen iyagoo sheegay waxa dhacay inay aad ugu xun yihiin mar kalena aysan imaan doonin muhiimada muuqaalku wuxuu ahaa maqaldan waa ilaahay qof bida aadana in qalad laga dhici karaa baafagtiin ma noqon karo markasta meeshaan waxaa ka raaligelinaya dadka walaalihii ah oo qaladkii ii fahmay oo sida khaldan wax u arkay ama dee anigu qofkas qalad way iga dhacay uma dhahay qalad ma iga dhicin oo hadallada aan adeegsado way khaldanaayeen sax weeyaan waxaan rabaa waqti inaan ka raaligeliyo koow walaalkayga iyo asxaabtiisa iyo asxaabteyda iyo dhammaan asxaabta nagoo xiran oo dhan oo yani sida khaldan loo fahmay oo ilaa shalay ilaa xalay igu soo qorayeen raaligelin bixin raaligelin sameeyay waa sax inta markii laga soo tago muhiimada meesha usoo fadhiistaa waxay tahay case close inaad ka dhigtaan wax walba because dad walaalo ah isla soo cayshay oo isla soo waqti isla soo qaatay ayaan nahay even maanta haddii aan waxna dhex maraan kale waxay ku qurux badan tahay inaad si hoos waxaan u dhamaysano laakiin inaad commentiyo khaldan aad u soo qortaan asaga oo weliba haddana qabjab ku sii ah sidoo kale aniga ay soo qortaan yani inay wax kala fogeysamaan wax ma isku soo dhaweynayso mar walbana waxa bay dhacaan waxa wanaagsan labada qof ee walaalaha ah muslimka in la isku soo dhaweeyo oo maslaxa dhexdooda laga abuuro laakiin ma wanaagsana in hadallo kala fogeynaya loo isticmaalo waxaan rabaa arrinkaa waxaan inaan ka dhaho koley maqaldamo waa ilaah ruuxa binaadamkana gaf waa ka dhici karaa maba ku sii jirtaba ruuxa markuu ruux dumar yahay gabadha walaashayda ah muuqaal waxay soo duubtay raaligelin ah waxaan leeyahay raaligelintaada anigii asxaabteydaba si wada jiraan kaaga guddoonnay qalad walbana casharaa laga bartaa dad badanaa jira aanan in badan fahansanayn waxa dhaliyey ama waxa sababay anigii Mariish inaan isku dhacno koley waxay ahayd dood yaroo taagnayd oo markaa laga hadlayay waxbarashada qofka jaahilka ah iyo qofka wax soo bartay waxaan ka hadlayay in aan dhiirigeliyo in aan support gareeyo dhalinyarta aan waxba baranin waayo ruuxa markuu waxba soo baranin qaar baa nolosha ka give up gareeya ama nolosha iska dhiiba dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinayay anigaba intaan shahaadana wataa oo 11 shahaado ah haddana mustawii aan ku habboonaa oo ah in shaqadii aan ka shaqeeyo ahayd oo aanan calfan waayin anigoo dhowr CV qoray shaqada aan hadda ka shaqeeyo ay tahay shaqo aanan cilmigeeda lahayn balse danta iyo waayaha adduun ay keentay marka dhalinyartii waxaan dhahay never give up haddaadan waxba soo baranin waxaa kuu banaan fursad ah in noloshaada aad horumarin kartid waayo waxaan dhahay boqolaal waxaa jira maanta aanan magacooda qori karin haddana ay shaqaalo u yihiin dad wax soo bartay oo ay xafiis u fadhiyaan marka life-ku waa opportunity in badan intaa muran dhalisay aniga iyada koley habeenka wixii ka khaldanaa ma sheegi karo walaashayda cafisayna iga tahay waayo life-ka suu u bilowday 2 saac camadaan ku jirnay saa ay tahay 2 saac ku jirnay waxbaa ka dhadhacay anigoo aan ku fogaanaynin oo aan rabin inaan arrinkaas ka hadlo haddana waxaan focuska saarayaa raaligelinteeda oo ah waan ku raaligeliyay mar haddii lagu dhaha waxaa waaye derbi meeshii ugu dambeysay oo la taaban lahaa ama madax meel ka saraysa oo la taaban lahaa ma jirto walaashayda raaligelinta waa kaa guddoomay asxaabta igu xiran ama dhalinyarta mar walba i daawda ama walaalaha i jecel
waxaan leeyahay adikana ma dhici doonto wixii habeenkaa dhacay dib dambana uma dhici doonto. laakiin arinta kale ee jirta waxay tahay janaalka Maariisha hawada ayaa laga saaray. su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa isku soo beegay waqtigan iyadoo dagaalkii Maariish iyo qurux ku dhiigle raaligelin ka bixiyeen? ma waxaa jira dad kale ka dhex faa'iideysanaya misna arin kale ayaa jirta? waa su'aal weli jawaabteeda aan la helin. si walba ay ahaato janaalka Maariish waxaan rajaynayaa in uu dib u soo laabto. waad ku mahadsantihiin muuqaalka aad daawateen. haddii ay tahay markii ugu horeysay aadna soo booqatid fadlan nagu soo biir si aad saaxiibada kale uga mid noqotid.